xafse xasan xuseen oo ah hooyo danyara xanuuna u dheeryahay kuna nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa muddo 10 sano ka xanuunsanayay Sudaysi Maxamed Cali oo kamid ah carruurta ay dhashay waxayna muddada 10 sano ah caafimaad ahaan u geysay badiba dhakhaatiirta Somaliland iyo qaar kamid ah dhakhaatiirta Itoobiya balse jawaabta ay siinayeen dhakhaatiirtu ay ahayd mid isku mid ah taas oo ahayd in Sudaysi u baahan yahay qalliin loona baahan yahay in la geeyo dalka dibadiisa hooyo xafse ayaa ummadda khayrka iyo sadaqada jecel weydiisatay inay ka garabsiiyaan sidii ay caafimaad ugu heli lahayd wiilkeeda caafimaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa bixiyay waxayna tiri dadka islaamka dhamaantood meel kasta joogan dalka iyo dibadda waan salaamayaa Ramadaan mubaarak baan leeyahay salaanka bacdi walaalaha islaamka dal iyo dibadda meel joogan baan waxaan leeyahay markoobaad iyo mar labaadba iisoo duceeya walaal horta marka hore markoobaad iyo mar labaad fadliga bisha Ramadaan aniga ilmaha yarba waan xanuunsanaynaa marka waxaan doonayaa inaan noo soo duceysaan marka koobaad iyo marka labaadba mugaabi codkay marka waxaan doonayaa walaal noo soo duceysaan aniga ilmaha yarba waan xanuunsanaynaa waan isla tacabsanahay ilmaha yar meel walba waan geeyay imika ilmo 10 sano jira dalka gudihiisa Soomaaliland iyo Itoobiya intay ku shisheysay ayaan geeyay meel ka fogna waan awoodi waa inaan geeyo marka dhakhaatiirtu waxay ku dhaadeen dalka gudihiisa waxba laga qaban kari maayo ilmahan qalitaan madaxa buu u baahan yahay xidid maskaxda mara ayaa xiran dalka dibadiisa mooyaane wadanka gudihiisa waxba laga qaban kari maayo aniguna waan awoodi waa wadanka dibadiisa inaan u qaado Itaaldi aan meel ku qabadsiiyo ma hayo aniguna sidoo kale aan muddo fara badan muddo 12 sano baan xanuun dawo ku noolahay oo xanuunsanayay kolba meel laga qabtaba imikana cunahay xanuunaya anigana aan tabcaan u ahay marka dhakhaatiirtu waxay ku dhaadeen aniga laftayda waxba wadanka gudihiisa laga qaban kari maayo marka walaalaha islaamka waxaan ka codsanayaa Ilaahay ba caafimaadka bixiyo Rabbi subhanahu wa ta'ala inay sidii daan caafimaad ku raadsan lahayn aniga ilmaha yar inay nooga caawiyaan meel kasta joogan wadanka qof kasta islaamina kulli meel buu ka celinaya iyagana Ilaahay waxaan u weydiinayaa Rabbi subhanahu wa ta'ala qof waliba meel kasta ka dhibaataysan yahay in Ilaahay ka caawiyo geesta kale Nuura Bakar oo kamid ah dadka jaarka la ah muddo badan ka warhaysay xaaladda qoyskan ayaa iyaduna nala wadaagtay ogaalkeeda walaal maxay tahay inaan xanuunsanahay jaarkooda nahay 12 sano inaan xanuunsanaysay iyadii ilmaha yar bay muddo dheer ba isla tacabsanaayeen maxay tahay ilmaha yar waa ilmaha yar aragta dhowr wuxuu 10 sano 10 jir weeyaan 10 sano kulba dhanbe u qaadqaadisay Hargeysa iyo Itoobiya meel walba la tagtay waxa dalka gudihiisa laga qaban maayo maxay tahay iyaduna way xanuunsanaysaa marka maxay tahay jaarkeeda lahayn waan xogagal baan ka haynaa marka muslimiinta dariiq dibadba joogta waxaan ka codsanaynaa in Ilaahay dartiisa soo caawiya waa bil Ramadaan Ilaahay maxay tahay in muraadkooda san la haysiiyay iyagana Abdi Waahid Beeldaaje Honkable TV Burco